munaasabad siyaasara loo soo agaasimay isla markaana loo qabtay mas'uuliyiin ka soo boqolay xusbiga mucaaradka ee wadani ayaa lagu qabtay xarunta guud ee xusbiga kulmiye mas'uuliyiintan oo hadda ku soo biiray xusbiga kulmiye ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadani musharaxa jagada madaxweyne xusbi xakinka talada haya ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku-xigeenka xusbiga kulmiye Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xusbiga kulmiye ugu horreeyna waxa madashaasi ka hadlay saraakiishii ka soo boqolay xusbiga mucaaradka wadani hadaladoodina waxa kamid ahaa sida tan ما شاء الله waan ku faraxsanahay inaan ku soo biiro xisbiga aad baan ugu faraxsanahay markii aan eegay inaan wax dali ugu jirin degmooyinkayga ama xafiisyada ama dadkii aan mas'uulka ka ahaa ayaan uga soo digay rugtay inaan hubiyo waxaan la shaqeynay muddo 2 sano ah waxaan la maray waqti badan xabad baa la igu riday hawlo badan baan la maray oo xisbigii ugu horeeyay ee Soomaaliland ee laga furo xafiiska ka furtay degmooyinka xafiisyada uga soo furay ma idaan maqal farjano ma idaan maqal malaaygo yeelay labadiiba xafiisyada uga soo furay sidoo kale waxa isna bartaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ahaa sida tan ay mas'alaanahay sida oo arki doonaan oo ay mataqaanaa talada ay qaateen ku raaci doonaan aniga hadal badan oo kaalkayga ma fura iyaga xaqadeynaya oo ku xaqadeynaya talada ay qaateen guntiga gabagabadii waxa munaasabadani soo afmeeray gudoomiyaha xusbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana hadaladiisi kamid ahaa sida tan iyo siyaasiyiintii odayaashoodiba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku waxaan sheegayaa mar haddii maanta halkaa aynu isugu nimid inaad ka mid noqoteen xubnaha xisbiga kulmiye oo hadda xukuumadii kuwiisi ka soo horreeyey haddana hawtii kuwiisi ka soo horreeyey waa la midkii aad iyo aad soo dhawaan labaad maanta inkastoo ay jiraan abaara culus oo ilaahay marayna naga qaado haddana waxaan ku jiraa waqtigii doorashooyinka intaynu hadhay waa 100 ayaamo maalmaha hadhay waxaan uga baahan yahay bariya galbeedba inaynu hawlgallo oo aynu ku hawlgallo dhammaanteen inagoo ka midaysan inaynu wanaajinno dalkeena Umar Shaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Soomaaliland Hargeysa